haddii aad rabtid inaad ookiyaal xirisid aad ku wareersan tahay nooca ookiyaalka xiri lahayd ma mid bira mise waa mid caaga. Muuqaalkan waxaa rabaa inaan idinkula wadaago mid walba faa'iiduu leeyahay iyo ceebihiisa. mar kale waa aniga tutorial ugu barateen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga. Fareemka caaga ah waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay markii aan ka bilaabno waxay tahay in uu fudud yahay oo kale oo mataqaana markuu wajiga ku jiro kale culeys uu saas u lahayn. sidoo kale wuxuu aad ugu habboon yahay oo kale haddii aad xiranaysid garaada aad u badan oo kale. haddii kale wuxuu aad u muhiim ugu yahay oo kale haddii aad xiranaysid garaada aad u weyn oo kale sababtoo ah wuxuu leeyahay xajmi hoose oo celi karo muraayadaada haddii uu culus yahay oo ka muuqanin banaankana aan usoo bixin. sidoo kale haddii sankaaga qaliin aad ku samayso kale ama nabar aad ku leedahay oo kale ama waxyaabo qaar oo aan xamili karin oo kale fareemkan oo kale munaasab uu kugu yahay oo kale sababtoo ah culeyska xoogaha wuu celi karaa oo xanuun cadaadis badan sankaaga ma saarayo. mid saddexaad marka waxay noqonaysaa haddii aad jecesho oo kale fareemkan oo kale in wejigaaga uu ka muuqdo oo kale oo mataqaanaa meel fog oo kale markii qofkaasoo fiirinayo in ookiyaal ku xiran yahay in kale in la kala fahmi karo. marka waxaan u gudbaynaa ceebaha uu leeyahay fareemka caaga ah oo haddii aad xiratid dhibaato ka imaan karo ama waxyaabo qaar uun ku wanaagsaneyn muxuu noqonaa. midda koowaad waxay tahay fareemka caaga ah kuleelka kale marka fareemada qaar oo kale marka kuleel badan ku dhaco wuu isbedelaya. tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaabaa inuu kala fidma laga yaabaa ama fareemkooda isbedelo kale oo xataa dhalada marka hore ku jirto kale inuu ka dabco. taasna waa midda koowaad oo ceebaha uu ku leeyahay. midda labaad waxay tahay haddii uu dhaawac ama jug kaa soo gaaro farsamadooda adagtaha oo inaad ka sabartida noqonaysaa. fareemka birta ayaan u gudagalaynaa waxaan u hormarsiinaynaa waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay. fareemka birta haddii aad xiratid midda koowaad waxay naysaa inuu wejigaagu aad ugu muuqanaynin oo qofka meel fog haddii kaa joogo wejigaaga uu dhexgalayo kalena waa waxyaabaha koowaad oo lagu doorto. midda labaad waxay tahay wuxuu leeyahay baad ama geedahan ujeedin caagagta oo sanka meesha uu fadhiisto marka qofka kale haddii uu sankiisa meelaha qaarna fadhiisto uu jecel yahay meelaha qaar uu ka ilaalinayo kale aad u wanaagsan sababtoo ah wuu ilaalin karaa oo mataqaana gacantiisa ayuu ku toosi karaa. waxyaabaha qaar uu kaga wanaagsan yahay midka caaga ma lahan wax la wareejinayo ma lahan. midkan baadhow leeyahay ama geedkaas cagaarka ah oo sidaa rabti aad u wareeji kartid. mid saddexaad waxay taa ku wanaagsan yahay haddii dhibaato ama jug soo gaarto kale farsamadeeda kale midda caaga uu ka fudud yahay oo waxaa laga yaabaa in farsamadeeda ay kuu fududaato halka midda caaga haddii uu dhaawac soo gaaro kale sidaas loo tuuraaye midkaana haddii farsamayaqaan u geyso kale farsamadeeda wuu ka fudud yahay midda kale. ceebaha uu leeyahay fareemka birta waxay tahay iyadoo u adkeysan karto in mataqaanaa cadceedoo kale ama kuleelka u adkeysato oon isbabedelayn haddana waxaa lagu arkaa dadka qaar oo kale in markay dhididaan oo kale maqaarkooda oo kale markay taabato xasaasiyad ka qaado ama marka qaar oo kale markii ay dhidid ay gaarto kale fareemka kalarkiisa isbedela haddii cadaan uu yahay kale haddii uu yahay qalin oo kale haddii dahabi oo kale uu isbedelo taas oo keeni karta in dhibaato soo gaarto fareemkaaga iyo maqaarkaagaba. midda ugu dambeysa ceebtihiisa leeyahay fareemkan waxay tahay haddii oo garaado weyn la saaro kale ama muraayad la saaro kale inuu aad u cuslaanayo kale oonan u adkeysan karin sankaaga. intaas waxay ahayn mid walba waxyaabuhu ku wanaagsan yahay iyo waxyaabaha uu ku xun yahay mid walba fareemka caaga iyo fareemka birta. ugu dambeyn adiga fareem caag miyaa xirataa mise fareem bir ah? haddii marka waxyaabo dheeraad oo kale oo aad rabtid oo kale in aad ku dooratid hadday noqoto nooca garaadadaada hadday noqoto nooca wejigaaga ku habboon waxaa aad ugu tashan kartaa dhakhtarka markaa indhaha ee optometristiga ah oo si gooniya markaa kuu sii karo midka ugu wanaagsan adiga kugu habboon wejigaaga. intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabin. haddii aad muuqaal ka faa'iidaysta like noo saar meel walba adduunka joogteen waxaa yirjaa caafimaad iyo indhafayow.